soo dhawaada xalqadda labaad ee tababarka ku saabsan ka ilaalinta ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka. Magacaygu waa Saalim. aniguna magacaygu waa Xaliima. Xalqaddan ayaa waxaan idinku sheegi doonaa mabaadi'da aasaasiga ah ee 4, 5 iyo 6 ee PSEA. 6 mabda' ee aasaasiga ah waa jaangooyooyin looga hortegayo ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah, gaar ahaan bulshooyinka ay saameeyeen dhibaatooyinka. Aynu ku bilowno mabda'a aasaasiga ah ee lambarka 4. Shaqaalaha arrimaha bani'aadanimada ka shaqeeya waxay saamayn ku leeyihiin cidda alaabooyin iyo adeegyada la siinayo. Tani waxay siinaysaa awood marka loo eego dadka caawimaadda u baahan. Sababtaas daraaddeed, hay-adaha hawlaha bani'aadanimada ka shaqeeya waxay si adag ugu dhiirigelinayaan hawlwadeennada in aysan la yeelan xiriirro galmo qof kasta oo ay saamaysay xaalad bini'aadannimo degdeg ah. Xiriirradaasi ayaa ka dhiga waxqabadka bani'aadannimada in uu u muuqdo mid ay ku yar tahay daacadnimada iyo ku kalsoonaanta. Kani waxaa lagu maamulaa xitaa dadka u shaqeeya hay'adaha bani'aadanimada ee ka soo jeeda bulsho ay saameeyeen dhibaatooyin. Xitaa haddii aad ka soo jeedo bulsho ay saameeyeen dhibaatooyin ama aad ku nooshahay xero qaxooti, waxaad weli leedahay awood la xiriirta gargaarka bani'aadanimo ee ay dadku helaan. Mabda'a aasaasiga ah ee lambarka 5. Haddii shaqaale ka shaqeeya hawlaha bani'aadannimada uu ka walaacsan yahay ama tuhunsan yahay in qof ka shaqeeya hay-addooda ama hay-ad gargaar kale laga yaabo in uu jebinayo xeerarka bani'aadannimada ee ku saabsan habdhaqan galmo, waa in uu soo sheegaa isaga oo raacaya habraacyada u dejisan hay-addooda. Sheegiddu waxay u muuqan kartaa mid fool xun ama cabsigelin leh, gaar ahaan haddii ay tahay mid ka dhan ah saaxiib aad wada shaqaysaan ama qof xil sare haya. Balse waxaa waajibaad kaa saaran yahay shaqaale bani'aadanimo ahaan inaad soo sheegto kiisaska ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah iyo habdhaqanka kale ee aan habboonayn. Marka aad wax aragto, wax sheeg. Haddaba aan wax ka baranno mabda'a aasaasiga ah ee ugu dambeeya. Mabda'a aasaasiga ah ee lambarka 6. Shaqaalaha bani'aadanimada waa in ay abuuraan oo ay joogteeyaan deegaan shaqo oo ka hortegaya habdhaqanka galmada ee aan la aqbali karin, kuna dhiirigelinaya shaqaalaha inay u dhaqmaan sida ku cad xeerarkooda habdhaqanka. Dhammaan maamulayaasha waxay mas'uul ka yihiin taageeridda iyo diyaarinta nidaamyo ilaalinaya deegaankan. Haddii shaqo iskaa wax u qabso ah aad kula shaqaynayso hay-ad bani'aadannimo, waa in aad gacan ka geysataa abuurista deegaan ay ku badqabaan dadka oo dhan, ragga, haweenka, wiilasha iyo gabdhaha, si aysan u soo wajihin habdhaqanno waxyeello leh. Waxaad sidoo kale mas'uul ka tahay xaqiijinta in dhibbanayaasha ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah loo gudbiyo khayraadka saxda ah iyo in lala xisaabtamo kuwa xadgudubka geysta. Axmed waa sarkaal ka shaqeeya mashruuca lacag shaqo ku beddelo ee loo yaqaano Cash for Work oo u shaqeeya hay'ad weyn oo caalami ah. Maryam waa haweeney Soomaaliyeed oo 30 sano jir ah kuna nool xerooyinka. Axmed wuxuu og yahay in Maryam ay ka soo jeedo qoys ballaaran oo saygeedana uu Muqdisho ku dhintay. Hooyadeeda way xanuunsan tahay. Maryamana waa tan aadda dhammaan goobaha gargaarka lagu qaybiyo si ay qoyskeeda ugu soo qaado gargaarka bani'aadanimada. Maalin iyadoo cunto lagu qaybinayo xerada ayaa Axmed wuxuu u tegayaa Maryam markii uu arkay iyadoo la dhibaataysan in ay cuntada u qaado gurigeeda. Assalaamu calaykum. Iga raali ahow. Waxaan arkaa in aad u baahan tahay in lagula qaado alaabta aad wado. وعليكم السلام. mahadsanid. Fadlan, waxaan filayaa in aadan dhib u arkin. Aad ayay u culus tahay.
abbaayo maxaad adiga u soo doontay cuntadan gargaarka ah ee uu ninkaaga u soo dooni waayey? ninkaygii wuu dhintay. Aniga ayaa ah qofka keliya ee reerkayga caawiya. Waxaa laga yaabaa in aan ku caawin karo. Waxaa jira shaqooyin aad lacag ku qaban karto si aad ugu maarayso nolosha qoyskaaga. Waxaan maqlay in uu jiro mashruuca lacag shaqo ku beddelo, balse waxay ila tahay in ay adag tahay in la helo. Dadka qaybtan deggan in yar oo keliya ayaa loo oggolaaday mashruuca lacag shaqo ku beddelo. Ma ogi. Waxaan leeyahay xiriiro. Waxaana kaa caawin karaa in aad gasho liiska. Runtii? Haa, cuntadan markaan gurigaaga geenno kadib, ma bixi karnaa si aan liiska magacaaga ugu soo darno? Gurigayga ayay warqadaha ii yaalaan. Halkaas ayaan ku samayn karnaa. Maya. U malayn maayo in ay fikrad wanaagsan tahay. Mar kale nooga dhig. Ka hor inta aanan kugu caawin inaad shaqada hesho, waxaad u baahan tahay in aad i tusto sababta aad ugu mudan tahay qof kale. Maxay tahay sababta aynan hadda halkaas u tegaynin? waxay ila tahay in Axmed isku dayay in uu Maryam ku cadaadiyo in ay isaga la galmooto. Wuxuu geliyey xaalad aan habboonayn, isagoo taa beddelkeeda ka caawinaya barnaamijka lacag shaqo ku beddelo. Wuxuu ogaa in ay u adeegsan karto lacagta dheeraadka ah in ay ku taageerto qoyskeeda. Wuxuuna isku dayay in taa beddelkeeda helo wax kale. haa wuxuu lahaa awood xitaa sida xubin ka tirsan bulshada Soomaaliyeed. Maryamana ma ahayn oo keliya qof qaata gargaar bani'aadanimo, laakiinse waxay sidoo kale ahayd qof si gaar ah u nugul, sidii haweeney carmal keli ah oo taageeraysa qoyskeeda. Haddii aad ahaan lahayd saaxiib ay wada shaqeeyaan Axmed, oo maqli lahayd Axmed oo wada sheekaysigan yeelanayo, maxaad samayn lahayd? Arrimahan waxay noqon karaan kuwo adag, balse waa muhiim in la fahmo si bulshada looga ilaaliyo waxyeello. Xaaladda la hal abuuray ee ay tahay in aad tixgeliso. Cali waa shaqaale ka shaqeeya howlaha gargaarka oo ka yimid dalka Kenya, una shaqeeya urur aan dawli ahayn, wuxuuna maamule ka yahay xero. Mustafa, oo ah saaxiibkiisa oo ay wada shaqeeyaan, ayaa maqlay Cali in la arkay isagoo la jooga gabar 17 sano jir qaxooti ah, kuna hadlaysa xoogaa af Ingiriis ah. Waxaa jiray warar xan ah oo laga helayay dad yar oo Soomaali ah oo xerada ku jira iyo shaqaalaha NGO, kuwaas oo sheegaya in Cali iyo gabadha uu xiriir qarsoodi ah ka dhexeeyo. Mustafa wuxuu go'aansaday inuu Cali weydiiyo runta waxa ay tahay. Walaal, waxaan u baahanahay inaan wax kaala hadlo. Haye walaal, waa maxay? Waxaan maqlay warar xan ah oo la isla dhex marayo oo ku saabsan adiga iyo gabar xerada ku jirta. Waxaan u malaynayaa magaceeda inuu yahay Tasmiina. Ma iyadaa midda ku hadasha xoogaa af Ingiriisiga ah ee iskaa wax u qabso ah, kula shaqaysa goobaha carruurta u wanaagsan? Walaal, meeshan qof walba wuxuu jecel yahay inuu dad xanto. Tasmiina waa gabar gaar ah, aad u caqli badan oo qurux badan. Waxaan jeclahay in aan la hadlo. Waa run in aan waqti isla qaadanno. Miyaanay caadi ahayn? Miyaanay 17 sano jir ahayn? Soo dhibaato kuma keeni karto? Maxay tahay dhibaatada? Sideen ku ogaan karaa da'da ay jirto? Maxay tahay sababta aan u weydiinayo waxaasoo kale? Waxay u badan tahay in ay jirto 18 ama 19. Haddii aabbaheeda uu dhibaato u arko in aan la hadlo ama aan arko, markaa wuu sheegi lahaa, soo ma ahan? Cali, laakiinse ka waran haddii lagu qabto, iyadana uma fiicna. Adigana kuma fiicna. Dad baa hadlaya, waad og tahay. Shaqada ayaa lagaa cayrin karaa. Adiga dantaada ka raaco. Saalim, ma kula tahay inuu Mustafa ku saxsanaa weydiinta Cali uu weydiiyey wararka xanta ah ee la isla dhex marayo?
waxay ila tahay Mustafa in ay niyaddiisu wanaagsanayd, gaar ahaan maadaama xaaladdu ay ku lug leedahay qof da'deedu ay ka yar tahay 18 sano. sax, waa waxaan habboonayn. Shaqaale bini'aadanimo sida Cali oo kale ah inuu xiriir galmo la yeesho xubin kasta oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee xirooyinka ku jira. Balse waa wax si gaar ah looga walaaco in uu xiriir la yeesho qof da'diisu yar tahay oo carruur ah. Haa, ma ahan wax cudurdaar noqonaya in Tasmiina aanan la weydiin da'deeda ama in loo qaato in ay da' kala jirto. Ma kula tahay Mustafa in uu wax sax ah sameeyey? Maxay tahay inuu marka xigta sameeyo? Waad ku mahadsan tahay in aad nagala soo qayb gasho cashar kale oo ku saabsan ka ilaalinta ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga xasuusanayo casharkan waa in dhammaanteenna aynu mas'uul ka nahay ka hortagga ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah, iyo in aan tallaabo qaadno marka aynu aragno ama tuhunno xadgudub. Sida dad hawlaha bani'aadannimada ka shaqeeya iyo iskaa wax u qabsadayaal ahaan, waa in aan isku maamulnaa jaangooyooyinkan oo aan xaqiijinnaa in saaxiibbada aan wada shaqayno iyo bulshooyinkaba in ay sidaas sameeyaan. Weydii kormeerahaaga cidda hay'adda u qaabilsan BSEA iyo sida loola xiriiro isaga ama iyada. Waa muhiim in aad og tahay in aad had iyo jeer la xiriiri karto cidda u qaabilsan BSEA si aad ula wadaagto walaacyada aad qabto oo aadna u weydiiso hagid. Haddii aad qabto wax shaki ah, kormeerahaaga ayaa sidoo kale ku siin kara hagid ku saabsan sida loola tacaalo xaaladaha qaar. Waa inoo kulanka kan xiga.